ololaha qaliinka indhaha iyo daaweynta bilaashka ah ee ka socday cisbitaalka guud ee magaalada Wardheer oo la soo gabagabeeyay ayaa lagu guuleystay 200 oo qof in aragoodii dib u helaan adeegan qaliinka indhaha iyo daaweynta bilaashka ah ee ka socday cisbitaalka guud ee magaalada Wardheer ee looga faa'iideynayay qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku dhaqan magaalada Wardheer iyo nawaaxigeeda ayaa lagu guuleystay in aragoodii dib ay u helaan 200 oo qof oo kamid ah shacabka looga faa'iideeyay adeegan qaliinka indhaha iyo daaweynta ee bilaashka ah shacabka oo warbaahinta dowlad deegaanka Soomaaliyeed SRTV la hadla ayaa sheegay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin isla markaasina ay aragoodii dib u heleen kadib markii qaliinka indhaha iyo daaweynta loo sameeyay halka 1,050 qofna caafimaadka indhaha baaritaan la mariyay isla markaasina qaar kamid ah muraayadaha indhaha iyo daaweyn loo sameeyay si markaasi loo dhowro ilaalada badqabka caafimaadka ee indhaha magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamuud halkan taaganahay waa Wardheer xaruntii caafimaadka ee gobolka Doolo أولاً وحان أمهد علينها عليهن أبوري كل كي هورين هيسيي هذانا أرجع نجنا قصي نوسو عليي يعني إلهي يقوم هذين هينا وحان مر لبعض هذين هينا وحال ليدي من لم يشكر الناس لم يشكر الله روحان كشورين دتك إلهي نكوم شكريه وحان مر لبعض هل كانوا ود عين هينا خاطرتي نوتمد وهو قامين هي دكتور عبد الحكيم أحمد نور iyo tiimkii kale ee la socday ee dhakhaatiirta ahaa dhammaantood iyo Wardheer dhakhaatiirteedii dhammaanteed oo uu maaragtay kow ka yahay Kuwait Ali iyo dhammaan dadkii maaragtay hawlahan ka qayb qaadatayba waxaan leenahay aqoontii aad barateen iyo cilmigii aad barateen ee Ilaahay uu idin siiyay ee aad waqtiga geliseen ayaa waxaad uga faa'iideyseen bulshadiinni si hagar la'aan ah ayaad wax ugu qabateen dhaqaale maaragtay wax dhaqaale ah 10 riyaal la noqotay hal qof oo la weydiiyay ma jiraan dadkaas waxaan anigu waxa la baaray 1,340 qof waxa qaliin noqotay 200 oo qof 200 baan anigu kamid ahay dadka la qalay isha bidixda alla ii qalay alxamdulillah isha arageedi waa caadi si caadiyan maanta wax uu arkaa ilaahay baan ugu mahadinayaa dhakhaatiirtanadii iyo wiilashanadii wax noo soo bartay wixii ay barteenna si hagar la'aan noogu shaqeeyayna ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu cimrigooda ilaahay noo dheereeyo ilaahay maalkooda barakeeyo cimrigooda barakeeyo caruurtooda barakeeyo cilmigooda barakeeyo maaragtay insha Allah ta'ala waliba gobollo fara badan oo horena way soo mareysay noo sheegeen haddana gobollo fara badan bay maaragtay insha Allah ta'ala tan bay sii tagayaan 8 maalmood bay maanta ugu tahay talaadadii bay bilaabeen maantana waa isniin waa 7 bari ma 7 bari way 7 bari bay Wardheer gobolka Doolo iyo maaragtay ka shaqeynayeen oo maaragtay insha Allah ta'ala habeen iyo maalin bay u taagnaayeen ilaahay ha ka ajri siiyo ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha ku xifdiyo ilaahay maaragtay aakhiriya adduunba waxay doonayaan Allah ha siiyo cadawgoodana Allah ha qabto ilaahayna ha xifdiyo waa wiilashanadii waa u ducaynaynaa waa dad islaama kolkii la qalayo waxa maana dareemin ajal quraan intii la ii daaray baasaan quraankii ula socday baa leeyahay waa la u qalay waana ku guuleysan doontaa orad waana ku guuleystay aragtidaydina waa fay ma sha Allah wiilasha Allah barakeeyo Allah noo daayo cimrigooda Allah barakeeyo dhammaan dadkii hawlaha ka qayb qaatay oo dhan ama cidii kor ka timid ha noqoto ama dhakhaatiirtii halka joogtay Wardheer ha noqoto ilaahay ha barakeeyaan leenahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed dool cabdi baa leeyahay waxaan ka joogaa gobolka Wardheer baan hadda joogaa dartoolana waana aad iyo aad baan dirid bahayo yaanu u mahadinaynaa ummadda dadka joogta dalka kuwa takhaatiirta iyo ummadda joogta takhaatiirta iyo kuwa shaqeynaya iyo ummadda isu timid aad iyo aad waan salaamayna intii ilaahay lagu bahdiyo waan salaamayna salaam ka bacdi takhaatiirta sida Sheekh Maxamed uu sheegay noo timid ee aan xoolaynayna weydiinaynay ilaha nagiina nuur madowga ah nuur ku bedelay aad iyo aad baan u mahadinaynaa boqolkiiba boqol ilaahay baan u barinay wax khayr qaba ayagana Allah siiyo Allah naga ajirsiyo ajir iyo xasanaad idamka ilaahay biilaahi kariim saasaan hadii baa ilaahay ka baryaynaa ma gobolka Doolood nimankii hadii baa ka howlgalay waa mahadsan khayr iyo baraka ku ognahay idamka ilaahay biilaahi kariim meelay joogaanba toor iyo tudambaba idam alla faataha
magacayga ku bilaabayo Jaamac Cabdullaahi Xasan baa la yiraahdaa waxaan ka mid ahay dadka maanta nasiibka u helay in indhahooda loogu fiiqo magaalada Wardheer marka boqolkiiba boqol aad baan lilba laga hayay oo ay xubiga saarnaa ishiina marka xubkii si fiican baa laga qalay oo laga saaray aad baan wax u arkayaa aad baan ugu mahadcelinayaa dadkii soo qabanqaabiyay hawshan iyo waxan iyo xilka iska saaray aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabnaa inaan qaadano si tilmaamihii iyo wixii iyo sidii nolol siiyay inaan u dhaqanno ay ka mid tahay dawladda sida isticmaal lahayn iyo saan soo ilaalin lahayn iyo intaas ba marka Ilaahay baa mahad leh oo hawshan aan ugu mahadcelinaynaa waxaan kale ugu mahadcelinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay ka mid yahay maamulka isbitaalku ka mid yahay ololahan caafimaadka ah oo isku kaashadeen xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida cusbitaalka guud ee magaalada Wardheer iyo dhakhaatiir mutadawiciin ah oo muddo 7 cisho ka socday magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Ndoolo kaasi oo laga faa'iideynayay bulshooyinka ku dhaqan gobolka Ndoolo iyo nawxigeeda ayaa la soo gabagabeeyay maareeyaha cusbitaalka guud ee magaalada Wardheer Dr. Cabdinaasir Cali Abshir iyo sidoo kale Dr. Cabdixakiin Axmed oo hogaaminayay dhakhaatiirta fulinaysa barnaamijkan adeega qalliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ah oo SRTV u waramay ayaa ka warbixiyay maanta ay taariikhdu tahay 22 bisha 3 2018 waxaa noo soo gabagaboobay ololihii indha fiiqada iyo daaweynta bilaashka ah ee ka socday hospitaalka guud ee magaalada Wardheer ololahan oo bilowday maalintii Isniintii la soo dhaafay ayaa maanta si rasmi ah ugu soo gabagaboobay kaas oo looga faa'iideynayay bulshada weynta ku dhaqan gobolka Ndoolo si guud iyo nawaaxigeeda waxay dhakhaatiirtu screen gareeyeen oo la chegareeyay dad gaaraya 1486 qof oo loo sameeyay screening ama chegarin loo sameeyay tirada dadka inta la eeg waxa la qalay oo qalliinkooda lagu guuleystay 200 oo qof kuwaas oo dhamaantood la chegareeyay qalliinkooda natiijadii ka soo baxdayna ay noqotay 100% dadka inta ka soo haray waa dadkii loo sameeyay daweynta loo sameeyay aragga muraadaha aragga la siiyay muraadaha akhriska la siiyay talo bixinta la siiyay si guudna program bulshada si fiican uga faa'iideysatay isla markaana natiijadii laga filayay ay ka soo baxday buu ahaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa tiimka shaqada gacanta ku hayay oo mutadawiciin ah oo haddii la ku simogal yahay aqoontooda iyo waqtigoodaba ugu deeqay bulshada gobolka inay adeega u filiyaan 200 oo qof qalliinkooda lagu guuleystay tirada inta ka badan oo gaariya 1200 gaarisana loo sameeyay daweyn iyo muraayada indha loo sameeyay marka si guud maanta halkaas noogu soo gabagaboobay natiijo fiican oo ay ka dhalatay si guud waxaan ugu mahadcelinayaa xukuumadda xafiiska caafimaadka ee deegaanka ugu horeeyay wasiirku Dr. Muuse kuwaas oo waqti soo galiyay in deegaanka yani maadaama uu kala fog yahay in adeegyada noocan oo kala lagu geeyo bulshada halkooda lagu geeyo marka aad u mahadsantiin warbaahinta deegaanka oo iyaduna kaalinteeda ka qaadatay si fiican warbixinta iyo ololaha qayb uga ahayd ayagana si gaar ah ugu mahadcelin aad u mahadsantiin bismillahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa gobolka Ndoolo caasimadiisa magaalada Wardheer waxaan soo khatibaynaa qalliinkii aan wadnay isbuuca ee ahaa dadka ilo jeexo indhaha dadkaas oo aan qallay dad tiradoodu gaarayso 200 qof 1486 qof oo aan jeegareynay baan waxaan siinay dawooyin iyo muraayado iyo adeeg kala duwan alxamdulillah maanta ayay soo gabagabowday waxa si weyn noogu soo dhaweeyay cusbitaalka Wardheer maareeyaha cusbitaalka Cabdinaasir Cali Abshir ayaa si weyn noogu soo dhaweeyay hawshaasna abaabulkeedii isxilqaankeedii lahaa alxamdulillah rabbil caalamiin maanta oo maalin isniina waxay noogu soo gabagabowday si cajaayib ah bay noogu soo gabagabowday alxamdulillah dadkii waxa arkay waayilka ahaa 200 qof ahaana alxamdulillah ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa in ilaahay caafimaad sariican siiyo oo aragga ilaahay soo celiyay ay soo farxsanaadaan anaguna maanta farxad bay noo tahay in aanu shaqadii sidii aan ugu talagalnay ay noogu soo dhamaato cusbitaalka iyo shaqaalaha iyo qolada meediyaha iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay aad baan ugu mahadcelinaynaa aad bay u mahadsanayeen وبالله التوفيق